shirkii toddobaadlaha ahaa ee golaha wasiirada xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa maanta lagu qabtay magaalada Kismaayo ee xarunta ku meel gaarka ee dawlad goboleedka Jubbaland iyadoona uu shir gudoominayay ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda dalka Saabiriin Sahal Maxamed ayaa warbixintan inoo faahfaahinaysa. shirka golaha wasiirada xukuumadda federaalka Soomaaliya oo maanta kulankoodii toddobaadlaha ahaa ku yeeshay magaalada Kismaayo ayaa waxa ay ka doodeen qodobo dhowr ah iyadoona sidoo kale la ansixiyay xeerar ay soo gudbiyeen qaar kamid ah xubnaha golaha wasiirada Soomaaliya. furitaanka kulanka qaybtiisa hore ayaa waxa warbixin ku saabsan horumarka Jubbaland ee caqabadaha haysta Jubbaland looga dhageystay madaxweynaha dawlad goboleedka Jubbaland Mudane Axmed Maxamed Islaam isagoona dhinaca kale sheegay inay aad ugu faraxsan yihiin in golaha wasiirada markii ugu horeysay ee kulankoodii khamiislaha ay ku yeeshaan magaalada Kismaayo. golaha wasiirada oo shir gudoominayay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Kheyre ayaa waxay yeesheen kulan saacado badan qaato oo ay saxaafadu dibad joog ka ahayd. shirka markuu soo idlaaday ayaa waxa saxaafadu u akhriyay wasiirka warfaafinta dawladda federaalka Soomaaliya injineer Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yeeso. bismillaahir rahmaanir rahiim. maanta oo taariikhda 13 Juulaay shirkii caadiga golaha wasiirada oo shir gudoominayay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Kheyre ayaa waxa lagu qabtay magaalada Kismaayo xarunta dawlad goboleedka Jubbaland. waa la socotaan waa markii ugu horeysay golaha wasiiro ay shirkooda ku qabsadaan caadiga ah meel ka baxsan magaalada Muqdisho. ugu horeyntii shirka waxa warbixin laga dhageystay madaxweynaha Jubbaland Mudane Axmed Maxamed Islaam oo runtii ka hadlay xaaladda Jubbaland, caqabadaha haysta, marxaladii ay soo mareen iyo waxyaalaha ay higsanayaan. runtii madaxweyne Axmed Madoobe aad iyo aad uga mahadceliyay xukuumadda federaalka oo shirkooda golaha wasiirada ku qabsanaysa magaalada Kismaayo. wuxuu ku tilmaamay tallaabo geesinimo leh oo ay qaadeen ra'iisul wasaaraha iyo xukuumadda. wuxuuna ku tilmaamay in tani ay tahay mid runtii bulshada Jubbaland ay aad u soo dhaweynayaan. madaxweyne Axmed Madoobe wuxuu aad ugu dheeraaday muhiimadda ay leedahay midnimada ummadda Soomaaliyeed iyo sida dawladda Jubbaland ay diyaar ugu tahay in golaha wasiiradu ay wax walba ka saacidaan iyo isagoo codsaday madaxda qaranka iyo wasiiradaba federaalka inay shirarkooda madaxda caalamka ay dibadaha ugu tagayaan ay halkan Jubbaland ay ku qabsan karaan. intaas kadib waxaa iyadana warbixin laga dhageystay hay'adaha amniga ee Jubbaland xaaladda amni runtiina warbixin dhammaystiran oo ay ku jirtay daraasado laga sameeyay kooxaha nabadiidka iyo goobaha ay ku sugan yihiin Jubbaland iyo qorshaha Jubbaland ee arrintaas ku aadan. intaas kadib waxaa shirka golaha wasiirada isku haray ra'iisul wasaaraha iyo golihii wasiirada oo shirkoodii caadiga ahaa halkaas ka sii watay. ugu horeyn waxaa warbixin laga dhageystay wasiirka boostada iyo isgaarsiinta wasiir injineer Canshuur oo ka warbixiyay xaaladda internet la'aanta iyo fiiladii fiber optiga ee dhaawac soo gaaray oo tani muddo ah internet la'aan dalka intiisa badan ka jirtay. waxa uu sheegay in dadaal badan ay ku bixiyeen sidii loo heli lahaa adeegaas dibna ugu soo laaban lahaa. waxa uu xaqiijiyay in markabkii sameyn lahaa dayactirka fiiladaas uu soo gaaray goobtaasoo runtii ah goob ka tirsan badda Soomaaliya. haddana uu markabkii ku howlgalayo lana rajaynayo in maalinta Axadda ah iyo wixii ka dambeeya uu dib u soo noqdo adeegaas isaga oo muhiimad u ahaa. wasiirku wuxuu hoos ka xariiqay muhiimadda sharciga isgaarsiinta uu leeyahay sababtoo ah shirkadaas iyada ah ee keentay fiber optiga waxaa lagula xisaabtami lahaa marka la siinayo sharciga in ay caqabadaan oo kale sidai uga hortegi lahayd iyo waxyaalaha dhici lahaa. marka intaas kadib waxaa isagana warbixin laga dhageystay wasiirka amniga qaranka wasiir Ducaale oo isagana ka warbixiyay runtii xaaladda amniga guud ee dalka. wuxuu si gaar ah wasiirku warbixin uga bixiyay khatarta ay leedahay ganacsatada iyo shacabka runtii taageera kooxaha argagixisada. golaha wasiiradu waxay go'aan ka soo saareen inaan la aqbali karin shakhsi Soomaaliyeed ama ganacsade ha ahaado ama aysan ahaanin inuu taageero dhaqaale mid siyaasadeed iyo mid niyad ahba siin karo kooxaha argagixisada. tanoo sharciga loola tiigsan doono cid alaal ciddii
falalkaas lagu helo iyadoo hay'adaha amnigan ay ku raad joogaan dad fara badan oo lagu tuhunsan yahay inay arrimahaas ku lug leeyihiin. intaas kadib golaha wasiirada maanta oo ajendadeedu aad u dheeraa waxaa looga hadlay sharciga waxbarashada guud ee dalka oo wasiirka waxbarashadu uu u soo gudbiyey hindi sharciyeedkii dood dheer iyo falanqeyn kadib waxay golaha wasiiradu ansixiyeen sharciga waxbarashada guud oo runtii wax badan ka tari doona jaangoynta waxbarashada dalka sidii shakhs kastoo muwaadin Soomaaliyeed u heli lahaa waxbarasho sidii manaahijta loo midayn lahaa sidii muxuu ahaa imtixaanaadka iyo qaadistooda iyo ciddii mas-uulka ka ah iyo maadooyinka qasabka ah ardayga Soomaaliyeed inuu barto ha noqoto mid muxuu ahaa waxbarasho si gaar loo leeyahay iyo waxbarasho guud. sidoo kale waxaa iyadana maanta golaha wasiiradu ay ansixiyeen xeerkii saxaafadda oo isbedel kooban lagu sameeyey kadib dib u eegis xeerkaas lagu sameeyey oo muddo soo socday wada tashi lala yeeshay dowlad goboleedyada iyo dhammaan suxufiyiinta Soomaaliya iyo qaybaha ay qosaysana golaha wasiiradu ay ansixiyeen isbedeladaas lagu sameeyey xeerka saxaafadda oo dhawaan loo gudbin doono golaha shacabka. sidoo kale wasiirka arrimaha gudaha waxaa laga dhageystay isagana warbixin hindi sharciyeed soo diyaariyey ee ku saabsan jinsiyadaha dood dheer falanqeyn kadibna waxaa la isla gartay in isbuuca dambe xeerkaas golaha la horkeeno si loogu codeeyo. waxaa kaloo iyadana jirtay warbixin laga dhageystay wasiirka cadaaladda ku saabsaneed maxaabiista Soomaaliyeed ee dibadaha ku xiran iyo muxuu ahaa ra'iisul wasaaraha iyo wasiirka arrimaha dibadda dadaalo ay sameeyeen oo maxaabiis fara badan hadda dowladda Ethiopia ay ku soo wareejinayso Soomaaliya. waxaa laga hadlay in dowladdan ay wax walba u sameynayso sidii maxaabiista Soomaaliyeed ee dibadaha ku jira loo soo ogaan lahaa tiradooda heerarkooda kala duwan isla markaana waddan walba heshiis loola geli lahaa si maxaabiista Soomaaliyeed muxuu dib loogu soo celiyo dalkooda. waxaa kaloo iyadana laga hadlay maanta oo la soo jeediyey waxqabadkii 100 maalmood ee xukuumadda oo xafiiska ra'iisul wasaaruhu warbixin ka sameeyey isla markaana wasaaradihii lagu bogaadiyey dadaalka ay sameeyeen 100kaas maalmood kadibna dhawaan loo soo gudbin doono shacabka Soomaaliyeed. waxaa iyadana sidoo kale laga hadlay sidii dalkan doorashooyin uga dhici lahaayeen 4 sano marka ay dhammaato muddada dowladda federaalka 2021 si doorashooyinkaas u dhacaanna ra'iisul wasaaruhu waxa uu u sheegay golaha wasiirada ahmiyad gaara in la siin doono dhammaan arrimaha keeni kara in la hubiyo in doorashooyinka ay dhacaan guddi heer wasiir ahna u xil saari doono isagana shir gudoomin doono kuwaasoo kasoo tala bixin doona sida ugu dhaqsiyaha badan loo diyaarin lahaa dhammaan muxuu ahaa waxyaalihii loo baahnaa. ugu dambeyn golaha wasiiradu waxa ay ka hadleen loo soo jeediyey in madaxweynihii hore ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo ka mid noqday golaha shacabka Soomaaliyeed in golaha wasiirada muxuu ahaa ay ansixiyaan xuquuqdii uu yeelan lahaa oo ay ka mid tahay 70% gudnadii madaxweynihii hore uu haystay iyo dhammaan wax laalo wixii u baahan yahay madaxweyne oo sharafkiisa karaamadiisa lagu ilaalin lahaa. tan oo golaha wasiirada dood dheer kadibna si aqlabiyada loo ansixiyey oo dhawaan xeer madaxweyne lagu soo saari doono si uu xuquuqdiisii iyo miisaaniyadda u lahaa uu u helo. wasiirka cadaaladda Soomaaliya mudane Xasan Xuseen Xaaji ayuu sheegay in kulanka golaha wasiirada uu ka hor akhriyay warbixin ku saabsan xabiista ku xiran dalka dibadiisa isagoona soo jeeday in la sameeyo guddi arrimahaasi dabagala. Sabriin Sahal Maxamed raadiyaha TV-ga dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland magaalada Kismaayo.